waxaa jiri jiray biyoole magaciisu ahaa Maxamed. Wuxuu dadka ka iibin jiray biyo uu ku sidi jiray dhiishiisa dhoobada ka samaysneed, midaas uu la wareegi jiray suuqyada magaalada. Dadku waxay aad u jeclaysan jireen dabeecaddiisa wanaagsan iyo nadaafadiisa. Maalinkii dambe ayaa boqorka magaalada wuxuu maqlay sheekadii biyoolaha, wuxuuna ku amray wasiirkiisa inuu u keeno Maxamed. wasiirkii waa u baxay, wuxuu suuqyada ka baadigoobay Maxamed ilaa markii dambe uu helay, wuxuuna u keenay boqorka. Boqorku wuxuu Maxamed ku yiri, maanta kadib shaqo kale ma lihid oo aan ka ahayn inaad qasriga ka dhex shaqayn doonto. Waxaad soo dhaweyn doontaa martidayda, waxaad fadhiisan doontaa agteeda, waxaadna igaaga sheekeyn doontaa waayihii ku soo maray. Maxamed wuxuu ugu jawaabay, waan adeecay amarkaaga. Maxamed wuxuu u yimid xaaskiisa, wuxuu u hambaliyay warka farxadda leh ee boqorka ka soo yeeray. Maalinkii xigay, Maxamed wuxuu ku labistay dharkiisa kuwii ugu qurxoonaa, wuxuuna si fiican u qurxiyay dhiishiisa, wuxuuna aaday qasriga boqorka. Kadib wuxuu bilaabay inuu martida boqorka u socdo soo dhaweeyo, biyana u qaybiyo si haraadku uga bao. Kadib wuxuu fariistay boqorka agtiisa, wuxuu ugu sheekeeyay sheekooyin aad u qosol badan. Waxaa halkaas ku dhammaaday maalinkii ugu horreeyay ee shaqada. Gurigiisa ayuuna aaday. Maxamed wuxuu aad ugu adkaaday shaqadiisa cusub. Ilaa markii dambe ay dhacdo in wasiirka uu ka hinaaso sida weyn uu Maxamed u hantiyay qalbiga boqorka. Maalinkii dambe markuu Maxamed dhamaystay shaqadiisa ayuu qaaday wadadii gurigiisa geyn lahayd. wasiirkii wuu ka daba baxay, wuxuuna ku yiri, Maxamedow, boqorku wuxuu aad ugu cawday riixada afkaaga ka soo baxaysa oo ah mid aad u qurmoon. Maxamed aad ayuu u yaabay, markaasuu ku yiri, maxaan sameeyaa wasiirkaygiiyow si uusan boqorku u dareemin riixada qarmuun ee afkayga? Waa inaad maro ku xirtaa afkaaga mar waliba aad imaanayso qasriga. Maxamed ayaa waxa uu ku jawaabay, hagaag, waan sameynayaa. Markuu waagu baryay, Maxamed wuxuu afkiisa ku xiray maro, wuxuuna hore u sii qaatay dhiishiisa sida caadada ah, wuxuuna aaday qasriga. Boqorkii aad ayuu u yaabay marada uu Maxamed afka ku soo xirtay, laakiin waxba kama uusan weydiin. Maxamed wuxuu halkiisa ka sii watay shaqadiisa in muddo ah, ilaa markii dambe uu boqorkii go'aansaday inuu wasiirkiisa weydiiyo waxa sababay in Maxamed uu afka maro ku xirto. wasiirkii ayaa ku jawaabay, waxaan ka baqayaa boqorkaygiiyow inaad madaxa iga jarto haddaan kuu sheego. Boqorkii ayaa ku yiri, ii sheeg waxaad ku jirtaa ammaanadayda. wasiirkii waxa uu yiri, boqorkaygiiyow, Maxamed wuxuu ka cawday riixada qarmuun ee afkaaga ka soo baxayso. Boqorkii aad ayuu ugu carooday warkii loogu sheegay Maxamed, wuxuu aaday xaaskiisa si ay talo u siiso. Waxay tiri, midkan warkan laga soo sheegay ka jar madaxa berito si ay tusaale ugu noqoto mid waliba oo xumaan kula damacsan. Wuxuuna boqorkii ku jawaabay, waa fikrad wanaagsan. Maalinkii xigay wuxuu boqorka u yeeray qoorgooyihiisii, wuxuuna ku yiri, mid waliba oo aad aragto oo qasriga ka sii baxayo, gacantana ku sita ubax, madaxa ka jar. Maxamedkii biyoolo ahaa sidii caadadu ahayd, wuxuu yimid shaqadiisa, wuxuu bilaabay inuu martidu u qaybiyo biyaha. Markii la gaaray waqtigii bixidiisa ayaa boqorku u yeeray, wuxuuna siiyey hadiyad xirmo ubax ah. Markuu damcay inuu iridka ka sii baxo ayaa biyoolihii la kulmay wasiirka, wuxuu ku yiri, yaa ku siiyey xirmadan ubax ah? Wuxuuna Maxamed ku jawaabay, boqorka. Isii ubaxa, aniga ayaa kaaga xaq leh, ayuu ku yiri wasiirka. Maxamed ubixii ayuu siiyey, wuuna isaga dhaqaaqay. Kadib wasiirkii wuxuu gacanta ku qabsaday xirmadii ubaxa, wuxuu damcay inuu qasriga ka baxo, laakiin waxaa sugayay qoorgooyihii oo qabay amar ah inuu qoorta ka jaro mid waliba oo gacanta ubax ku sito, qoorta ayuuna ka jaray. Maalinkii xigay sida caadadu ahayd, biyoolihii Maxamed wuxuu u soo kalahay shaqadiisa isagoo garabta ku sita dhiishiisa, wuxuuna gudagalay shaqadiisa oo ahayd inuu martida waraabiyo. Boqorkii ayaa aad u yaabay markuu arkay Maxamed oo nool, maadaama uu haystay in qoorta laga jaray. Boqorkii ayaa markaa kadib go'aansaday inuu weydiiyo waxa ku qasbay inuu Maxamed afka xirto. Maxamed ayaa ku jawaabay, boqorkaygiiyow, wuxuu ii sheegay wasiirkaaga inaad aad u dhibsatay qarmuunka afkayga ka soo baxayo, wuxuu igu amray inaan afka xirto si aadan u dareemin. Boqorkii ayaa mar kale su'aalay, aaway ubaxii aan ku siiyey?
maxamed ayaa ku jawaabay, waxaa iga qaatay wasiirkaaga, wuxuu ii sheegay inuu igaga xaq leeyahay isaga. boqorkii ayaa dhoola caddeeyey, wuxuuna yidhi xaqiiqdii uu kaaga xaq leeyahay maxamedow.